kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeenan xogta shiine oo aan kusoo gudbino xogaha ugu dambeeyey ee warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. barnaamijkeena warbixintan waxaan kusoo gudbin doonaa Afrika iyo Yurub kadib Turkigu mustaqbalka wuxuu diin ku qabsan doonaa Mareykanka. waa cilmi baaris ka soo baxday reer galbeedka sababaha ay u daliishadeen iyo tallaabada Turkigu uu qaaday ayaan idin soo gudbin doonaa iyo warbixin dhinacyo badan ka kooban. Turkiga ayaa isku dayaya inuu dhex galo bulshooyinka muslimiinta ah ee ku nool Argentina, inkasta oo dhaleecayn uu kala kulmayo taageerada ururada ku aadan bulshooyinka reer galbeedka. Turkiga ayaa dhowaan wax ka bedelay jahaynta Latin America iyadoo Turkigu doonayso inay dhex gasho bulshooyinka muslimiinta ah ee halkaas ku nool iyagoo taageeraya barnaamij lagu barayo diinta Islaamka, taas oo kor u qaadaysa cabsida ay qabaan reer galbeedku saamaynta arrintani iyo xaqiiqada Turkiga gaar ahaan marka laga fiiriyo kuwa qalafsan dhaleecaynta ay kala kulmaan muslimiinta sida Faransiiska. Turkigu wuxuu qorsheynayaa inuu ka faa'iideysto kaarka deynta si uu u dhex galo bulshooyinka muslimiinta ee Latin America. Tanina waxay ku timid kadib markii qorshaheeda qaaradda Yurub ay la kulantay saameyn olole Faransiisku uu hogaaminayo ee ay saamaysay masaajido badan iyo ururo. siday daabacday jaridda Al Arabi ee ka soo baxda Britain oo faaladani qalinka ku duugtay saameynta uu ku yeelan doono America kadib saameyntiisa sii kordhaysa ee Afrika iyo Yurub. kadib markii dadaalkeeda badankoodu ay diiradda saareen Turkiga sidii loo dhexgeli lahaa Yurub iyadoo gacan ka geysanaysa dhismaha masaajidada iyo waxqabadyada kale ee Ankara si ay u dhexgalaan Yurub, waxay u muuqataa in Turkigu u dhaqaaqayo soo saarista isla waaye aragnimadiisa Argentina isagoo wax ka baraya mabaadi'da iyo manhajka Islaamka. sida ay leedahay sheekadani, isku dayga Turkiga ee ah inuu ku soo duulo America isagoo ku hoos jira diinta ma dhalan xilligani, iyadoo Turkigu sanado badan doonaysay in ay ku maalgeliso qaar ka mid ah dhaqdhaqaaqyada Islaamka, halkaas oo ay doonayso inay ku saxdo dareenka muslimiinta kuna kasbato naxariis iyo taageero badan howlaheeda. isku daygaasi wuxuu kalifay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan inuu dhahay November 15, 2014 muslimiintu waa kuwii daahfuray America horumarkeeda, maahan Christopher Columbus marka loo eego dadaalada uu ugu jiro inuu saxo dareenka muslimiinta. madaxweynaha Turkiga tallaabada ugu dambeysay ee xiisaha badnayd, Turkigu isbuucii ugu dambeeyay Argentina waxa uu diray 700 oo buugaag diinta Islaamka ah iyo tallaabo muujinaysa sida ay u qabaan indhayaashu in Ankara ay sii wado dadaalkeeda ku aadan ka faa'iideysiga diinta si ay u hesho taageero iyo u damqashada bulshooyinka muslimiinta ah. waaxda madaxtooyada ee arrimaha diinta ee Turkiga ayaa sheegtay Jimcihii la soo dhaafay inay dartay 7,000 oo buugaag ah oo ay ku jiraan nuqullo ka mid ah Quraanka Kariimka ah oo loo turjumay afka Isbaanishka muslimiinta ku nool Argentina, iyadoo la doonayo inay ka taageeraan barashada diinta Islaamka. warbixinada saxaafadda Turkiga ayaa soo wariyay in xafladda wareejinta buugaagta oo la qabtay salaadii Jimcaha ee ugu dambeysay kadib markii masaajidka Al Ahmad lagu qabtay xafladdaasi kana qayb galeen safiirka Turkiga u fadhiya Argentina Shafeek Foral Alti iyo madaxweynaha xarunta Islaamiga ee Argentina Anibal Bashir Peker iyo agaasimaha guud ee xarunta xiriirka dibadda. 7,000 ee buugaagta ayuu Turkigu u diray Argentina oo ay ku jiraan nuqullo ka mid ah Quraanka Kariimka ah, buugaag lagu turjumay afka Isbaanishka, waxaana sii dheer xadiiska iyo buugaag kale oo lagu turjumay afka Isbaanishka oo ay bixinayaan arrimaha diinta ee Turkiga iyadoo lala kaashanayo xarunta Islaamiga ee Argentina. danjiraha Turkiga u fadhiya Argentina Altay wuxuu khudbadiisa ku sheegay in aqoonta iyo akhriska
wax kasta ay kordhiyaan dadka iyo hagaajinta nolosha oo ay ka mid yihiin ka faa'iidaysiga. wuxuu intaa ku daray in natiijooyinka akhrisku ay yihiin kuwo qiimo leh nolosha. buugguna waa kaalmadeenna ugu qiimaha badan, sidaa darteed waxaa jira xidhiidh toos ah oo muhiima oo u dhexeeya akhriska iyo qiyaamka, akhlaaqda wanaagsan iyo dhowrista xuquuqda. waajibkayaguna waa inaan ku laabannaa nuxurkeenna, xigmaddeenna iyo fakarkeenna, iyo in aan xal u helno dhibaatooyinka xilligani aan ku noolnahay. dhinaciisana Altai wuxuu sheegay khudbad uu jeediyey in arrimaha diinta ay isku dayayaan inay la xidhiidhaan muslimiinta meel kasta oo ay dunida joogaan. isagoo intaa ku daray, waxaan rajaynaynaa in buugaagta qur-aanku ay qayb ka qaadan doonaan waxtarka walaalaheenna, xitaa in yar oo aqoonta caalamiga ee diinta ah, taas oo naga dhigaysa inaan dareenno sharafta iyo isla weynaanta. sarkaal Turki ah wuxuu muujiyey inuu diyaar u yahay iskaashi si loo siiyo fursadaha waxbarashada ee jaamacadaha ardayda Argentiin ee doonaya inay bartaan cilmiga diinta, isagoo xusay in kuliyadaha diinta islaamku ay kor u dhaafeen Turkiga 100,000. Bakeer ayaa dhankiisa carabka ku adkeeyey in awoodda muslimiintu ay xoojisay cilmiga taariikhda oo dhan. qofka muslimka ah ee xoogga badanna naftiisa iyo ummaddiisa keliya ma anfacayo, laakiin wuxuu waxtarayaa aadanaha oo dhan. wuxuu muujiyey in uu ku mahadsan yahay Turkigu turjuminta buugaagtani, isagoo carabka ku adkeeyey inuu ku dadaali doono inuu si cadaalada ugu qaybiyo muslimiinta ku nool Argentiin. madaxa xarunta islaamiga ee Argentiin, Turkigu wuxuu isku dayayaa in Latin America ka raadiyo bulshooyin muslimiin ah siyaasad oo dowladda Turkigu ka hirgelisay Yurub iyo qaar ka mid ah wadamada Aasiya iyo Afrika. sida laga soo xigtay kormeerayaasha, Turkigu wuxuu qorsheynayaa inuu ka dhiso Latin America nidaam islaami ah ee ka socda Argentiin, isagoo ku horumarinaya inuu difaacayo danaha muslimiinta iyo barashada islaamka, kuwaas oo ah in isla siyaasadda loo adeegsaday taageerada ururada islaamiga ee siyaasadda ee Yurub sanadihii lasoo dhaafay iyo 10 sano, ayay sheegaysaa sheekadu. Adel Lafti oo ah cilmi baadhe Tunisia isla markaana taariikhda ku xeel dheer ayaa yidhi, kama reebna in siyaasadda madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku wajahan yahay koonfurta qaaradda Amerika, maxaa yeelay isla siyaasadani ayaan ku soo aragnay Afrika iyo sidoo kale wadamada. in Turkigu uu gelayo gabaad weyn oo diinta si uu u abuuro joogitaanka dhaqaalaha ee xoogga leh, isagoo furaya suuqyada dhisidda ganacsiga. Latifi waxau intaa ku daray wicitaan uu la yeeshay hogaamiyaal carabta ah inay muujiyeen fariin ka timi Bariis in siyaasadda Erdogan ay ku salaysan tahay ku tiirsanaanta bulshooyinka muslimiinta ah iyo ujeedooyin badan, gaar ahaan dhaqaalaha. ma diidayo imaatinka Erdogan ee Latin America in si toos ah uu u jaleecayo indhaha Turkigu meelaha bannaan. tanina waa tan aan ognahay, ha ahaato gelitaanka dagaalada gobollada ama iyadoo loo marayo diblomaasiyadda islaamka oo la fulinayo. dadka wax indheeya waxay aaminsan yihiin in Turkigu uusan Latin America maanta ka dhigin ajadayaashiisa ballaadhinta iyadoo loo marayo diinta islaamka, maadaama horey u siisay qaaradani muhiimad weyn, iyada oo la qabsanaysa banaanbaxayaasha islaamiga ah inay ku gasho xariga u dhexeeya Sacuudi Arabiya iyo Iiraan ee hogaaminaya dunida islaamka. tusaale ahaan, sanadkii 2014 Istanbul waxay martigelisay shir madaxeedkii hogaamiyaasha islaamka ee Latin America, iyadoo goobjoog ahaayeen madaxweynaha Turkiga Erdogan iyo ninka hadda mucaaradka ee Ahmed Davutoglu. shir madaxeedka waxaa ka qayb galay ugu yaraantii 76 madaxda hay'adaha islaamiga ah, marka lagu daro 40 wakiilo oo ka socda wadamada Latin America oo ay ku jiraan Brazil, Argentiin, Venezuela iyo kuwo kale. isbedelada cusub ee Turkigu waxay doonayaan inay ku xoojiyaan bulshada muslimiinta ah ee ku nool Latin America, iyadoo dib u soo nooleynaysa cabsida indhayaasha ah inay taasi horseedi doonto fiditaanka dalka Turkiga ee bulshada muslimiinta ah ee Amerika, sababtoo ah taageerada Ankara ee ay siinayso. waxaa dhici kara in ay muuqato taas, gaar ahaan marka loo eego Faransiiska.
Argentiin. Ankara waxay isku dayeysaa in ay dhex gasho dabool diimeed si ay u xoojiso saamaynta ay ku leedahay, waxayna u nuglaatay isku dayada gelitaanka kooxaha Shiicada ah sida maleeshiyaadka Xisbullah ee Lubnaan. Goobjoogayaasha ayaan meeshan ka saarin isku dayga cusub ee Turkiga ee lagu doonayo in lagu dhex galo bulshooyinka muslimiinta ah ee ku nool Argentiin, maadaama Maraykanka ay si guud uga hor imaanayaan danaha Turkiga. Kormeerayaashu waxay ku baaqayaan in tani muuqato xaqiiqooyinka bulshada muslimiinta ah. Taariikhyahanka reer Tunisia Al-Lefti wuxuu intaa ku daray isku dayadan ay ku doonayaan inay ku sameeyaan muslimiin ku nool wadamada shisheeyaha, ha ahaadaan Ameerika, Yurub ama meelo kale. Sida laga soo xigtay, taariikhyahankani wuxuu ku doodayaa in isku dayada Turkigu ay saameyn ku yeelan doonaan muslimiinta, isla markaasna ay dhalin doonaan falcelin reer galbeedka. Faransiiska ayaa ka mid ahaa macnaha guud. Ololaha Faransiisku wuxuu qaatay go'aan ujeedadiisu ahaa in la faaruujiyo ilaha fekerka ee u adeegaya dalka Turkiga. Wuxuu u arkay in khilaafadiyada iyo saamaynta Turkiga uu dhexda uga jiro Faransiisku